ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa kaabiga ku haya deegaanka Muqokori oo ka mid ah meelaha ay ku xoogganayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku sugan gobolka Hiiraan. waxaa sii xoogaysanaya howlgalka iyo duulaanka ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa macawisleyda ee howlgalka ka wada deegaanada gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. saraakiisha hogaaminaysa ciidanka xoogga dalka ee howlgalka horkacaya ayaa xusay in howlgalku uu sii socon doono inta lagala wareegaya Al-Shabaab deegaanada ay maamulaan ee ka maqan gacanta dawladda. waxayna saraakiishu sheegeen in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan uu yahay mid lagu xuraynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkaasi. Korneyl Cali Dhuux Mahadalle oo ka mid ah saraakiisha ku sugan gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka Halgan oo la hadlay Shabeelle ayaa sheegay in gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan uu yahay mid sii socon doona inta laga saarayo Al-Shabaab meelaha ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan. deegaanada gobolka Hiiraan inta ka dhiman intaasaan hadda kusii wajahna baan soo marnay degma maxaasanka matadaana laga soo bilaabay halkan ka degma maxaasan soo marnay degma beledweyne laga soo bilaabay ilaa halkan aan joogno webiga ilaa bariga maxaaseed intii laga gaaro dad si safta leh ciidamada u socdaan. marka shabaabkii firdanay raadigiisa meel waxay ku dhintaan ayaan asalaxin raadinaynay ilaa halkaas oo dhan waa laga soo sifeeyey. marka waa ciidan aan hadda wax xakinaya ma jiraan laakiin wuxuu ku socdaa soo bilow deegaanadii ay dadka ku laayeen oo ceelasha ka gubeen way guryihii ka gubeen sida Teedaan Ukure Afridood halkaasoo dhan baa ciidanka Inabaal halkaasoo dhan bay ciidanku ka soo dhaqaajiyeen xaggana beledweyne iyo jiinkay ka soo dhaqaajiyeen. marka dhulkaani waa dhul aad u baaxad weyn dhammaan gobolka Hiiraan qaybtiisa webiga ka bariga ah meelaha ay uga jiraan aan iska yar insha Allah waa lagu sii socdaa sida Muqokori iyo Tardo iyo Jalalaqsi iyo dhulkaasna waan gaaraynaa haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala yiraahdo saacadaha ku sii soo leenahay. ariga ciidanka lugta Generaal Biixi codku ku hadlay sax waaye cadowgii waa laga saaray dhulka wadadaas laamida ahayd oo dhan laakiin sidoo asaguba qeexay waxay tahay in laga saaro xaniyada iyagu dhulkii dhoobeen ayaa in la xaqiijiyo si shacabku oo dhibaato ugu gaarin iyo bulshada maraykanka ayaa laga wadaa in badan waa la soo sifeeyey inta kale dhan waa lagu sii socdaa. marka si oo kale laga qaba male laakiin waa xaqiijinaynaa amnigeeda si miinooyinka iyo qaraxyada meesha dhigaan aan uga dhamaystirno afkaan hore u sheegay taliyaha ciidanka. dhanka kale wararka laga helayo gobolka Hiiraan ayaa tilmaamaya in aroornimadii hore ee saaka ciidanka xoogga dalka ay la wareegeen deegaano cusub oo kala ah Wajab, Camir Jabiye, Lalaba iyo deegaano kale oo galbeedka kaga beegan magaalada beledweyne qiyaas ahaan 70 kiiloomitir una dhow deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan. saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in ay xaqiijinayaan amniga deegaanada cusub ee lagala wareegay Al-Shabaab waxaana socda baaritaano ku aadan miinooyin laga cabsi qabo in Al-Shabaab ay ku aaseen deegaanada gacan ku hayntooda lagala wareegay. xasan kaafi xaaji maxamed Shabeelle TV Muqdisho. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.